السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan kan idinka salaamay LSE channel YouTube channel ka oo lagu talagalay in wax lagu kala faa'iideysto ama IT-ga waxyaabaha faa'iidada u jirto bulshada ku hadasha afka Soomaaliga in lagu kordhiyo afka Soomaaliga teknolojiyada IT-ga awada waxaan ku soo qaadanaynaa Microsoft Office oo ka kooban Word, Excel, Access, PowerPoint oo muhiim ah oo caan ah oo badanaa shirkadda Microsoft ay samaysay oo aadna u fiican ayaa ku soo qaadanaynaa maxaa bedeli kara maadaama uu lacag yahay oo maxaa bedeli kara oo asagana u dhigma lana isticmaali karo sida hadda u jeedaan waxa halkan iigu jira waa Microsoft 2019 waxaan isticmaali karaa waxyaabo badan oo faa'iido leh ayuu qabaa waxa kamid ah leeyahay template ama naqshado diyaarsan ayuu leeyahay sida u jeedaan template diyaarada boogina horta waa kana insert your table of contents waxyaabo badan uu leeyahay aad buu ugu fiican yahay waana mid aad iyo aad u wanaagsan oo la isticmaali karo marka ma jirta mana la isticmaali karaa wax alternative ah oo bedelkiisa geli kara oo fudud miyaa la heli karaa yes waa la heli karaa waxa jira LibreOffice mid la yiraahdo oo muhiim ah hadda sida u jeedaan shaashada u jeedaan oo bilaasha una dhigmo compatible la ah oo muhiimna ah waxna lagu qoran karo oo asagana u dhigmo wax lagu qoran karo waa u jeedaan waa kana marka haddii aan ku qoro LS YouTube channel sa u jeedaan waan ku qoray farta waa loo weyneyn karaa laakiin ma aha ka arkaysid midabka ayaa ka bedeli kartaa nooca doonta ka dhigi kartaa farta ayaa waa weyneyn kartaa type-ka ayaa bedeli kartaa fartan ayaa ka dhigi kartaa wax rabta ka dhigi kartaa marka maxay tahay bulshada Soomaaliyeed faa'iidada ugu jirto in ay LibreOffice ama Writer ay qaadato waa mid barnaamijkan wixii aad ku qorto ama ku unkato aad ku isticmaali karto Word sidiisaba oo isticmaali karto oo laga maarmaana una dhigmo lacagna ma aha waa bilaash hadda u jeedaan save you don't save u jeedaan waan ka baxnay waa kana wuxuu leeyahay calculator spreadsheet uu leeyahay impress uu leeyahay dhamaan waa kuwana marka aniga waa soo download gareystay si bilaash ah marka halka ka soo download gareysan kartid marka xagee kamid ah saa u jeedaan LibreOffice waxaad tagi kartaa LibreOffice.com anytime jeclahay LibreOffice marka aad tagto waxaad ka heli kartaa in aad soo download gareysato oo aad computerkaaga gashato waxa kaloo iyadana muhiim ah in operating systemka Microsoft Windows-ka oo ku dhisan wax la yiraahdo GUI waxa uu ku dhisan yahay GUI maxaa loola jeedaa GUI waxa loola jeedaa wax kale ma aha GUI waaye GUI waxa uu dhigantaa waa graphic user interface ayay u dhigantaa oo muhiim ah graphic user interface maxaa loola jeedaa graphic user ama GUI waxaa loola jeedaa graphic user interface ayaa la yiraahdaa wuxuuna ku dhisan yahay what you see is what you get system ah oo ah waxaad maaragtay waxaad u jeedo waxa isticmaali kartaa marka GUI-ga waa user friendly oo Windows-ka iyadana waxaan ku soo qaadan doonaa hadii ila yiraahdo operating system-ka oo Windows-ka maxaa bedeli karo waxa bedeli karo Linux oo distribution kala gedisana leh laakiin dadka Windows-ka isticmaala waxa aad ugu fiican inay isticmaalaan distro-ga la yiraahdo Linux Mint wuxuu dhigmaa waa graphic user interface isagana aad buu u wanaagsan yahay oo waa mid aad loo isticmaali karo marka best alternative-ka oo Office alternative-ka muxuu yahay waa LibreOffice waa la badan yahay laakiin halkan waxaan ku soo qaadan doonaa hadii Ilaahay yiraahdo sida u jeedaan LibreOffice ayaa kamid ah waa kana LibreOffice waa open source waa muhiim waa mid bulshada ka wada dhaxeeyo oo qof walba oo mataqaana programmer oo wax ku diri kara waa cross platform powerful suite free to use waa kana waa download gareysan kartaa website-ka tagi kartaa website-ka waa kana marka waxaad tagi kartaa waxaan idin gelin doonaa qaybta hoose waa kana waa download gareysan kartaa LibreOffice hadduu systemkaaga liitana waxaad samayn kartaa LibreOffice 7.0.4 ayaa qaadan kartaa oo muhiim ah marka qaybtii ku horeeyay ugu dambeeyay hadda waa kana waa 7.1.0 marka waa muhiim in aad mataqaana aad maaragtay aad isticmaasho
sidaas daraadeed waxaa kaloo ayadana aad isticmaali kartaa oo ayadana lagama maarmaan ah oo ku furan Microsoft waxaad isticmaali kartaa oo kareeto kuwan iyaga oo aan gelin doono qaybta ugu horeyso ay kamid tahay Free Office ka WOffice Calligra Office Suite Polaris intaan dhan ayaa qaadan kartaa laakiin LibreOffice ayaan kula talin lahaa bulshada inay qaataan maadaama uu yahay uusan qiimo kugu fadhin lacag uu yahay oo si fudud inta u soo dejisid aad u gashan karto muhiimna ah compatible na ah Microsoft Office ka ama oo ka kooban Word oo wax lagu qorto Excel oo wax lagu xisaabsado PowerPoint oo bandhigyada lagu soo bandhigto an access oo database ah iyo Outlook oo lagu furto hadii ilaahay ku roon yahay emailada ama publisher oo idan loogu talagalay naqshadeenaha inkastoo aan hadda taas aan sheegin Free Office laftigiisa waa uu fiican yahay touch screen maaragtay compatibility ayuu leeyahay marka waxaan isku dayaynaa asna inaan tagno website kiisa oo aan inta soo qaadno aan maaragtay idin soo gelino qaybta hoose oo waxa uu leeyahay Mac oo isticmaali kartaa oo ah Mac oo isticmaali kartaa Windows iyo Linux saddexdaba waa isticmaali kartaa waxaan soo gelin doonaa hadii ilaahay yiraahdo soo gali doona maaragtay linkiga halkaas baan idin soo dhigi doonaa waxa kale oo idin ka balan qaadaya in aan idin siiyo Office 2019 oo aad isticmaali karto oo damiis ah oo isagana muhiim ah oo aad isticmaali karto halkaan ka download gareysan karto iyadana bulshada inay ka faa'iideystaan asagoo ah digital form ah oo aad meesha doonto ka download gareysan karto marka waxa aan hadda aan sugnaa waxa ay tahay waa mic in aan mataqaana cawada aan soo qaadanay casharkeenaas oo ku saabsan in aad soo download gareysan karto Office maaragtay alternative to Office inaan sameeyno alternative to Office marka muxuu yahay alternative to Office maaragtay waxa isticmaali kartaa Libre wala badan yahay laakiin hadda inta ugu muhiimsan Libre inay isticmaasho ayaa muhiim ah oo muhiimada ku jirto maadaama Microsoft Office uu lacag yahay oo san bilaash ahayn waxaan isticmaali kartaa LibreOffice iyo kuwa kale oo badan oo idin gelin doono qaybta hoosta oo comments ka ah aan idin gelin doono waxaan idin kula talinayaa LibreOffice ka isticmaashaan anigu waa isticmaalaa marka waxaan idin rajaynayaa in aad casharkan ka faa'iideysan doontaan dadkuna ay fursad u heli doonaan inay helaan barnaamij ama program ama software application bilaash ah una dhigmo Microsoft Office oo aad isticmaali karto oo sida doonta ka yeeli karto ayaan idin soo bandhignay Ilays channel waxaan isku day doonaa in aan hore u socono waxyaabo kale idin soo bandhigno waxaan noogu xigi doono casharka noogu xigi doono wuxuu noqon doonaa in aan idin keeno alternative to Windows Microsoft Office oo lacag ah oo alternative ah sida Linux oo distribution ay kala gedisan la ama qaybo kale leh ama laama kale leh sidaas daraadeed Linux Mint ayaan isku day doonaa in aan online idinku soo bandhigno oo dadku ka faa'iideysan karaan oo bilaash ah oo alternative ku ah Microsoft Office ee kana wanaagsan dhinac walba isticmaali kartidna marka sidaas daraadeed waxaan idin ka codsanaynaa hadii aad nagu cusub tahay ka qayb qaado u gudbi saaxiibada la wadaag intaas leedahay way ka faa'iideysan kartaa notification bell-ka riixsi aan ku wargelino wax kasta oo cusub ku soo biiro aad ka faa'iideysan kartid subscribe dheh like dheh intaas waxay noo suurtagelin doontaa in aan barnaamijkeena sii wadno oo aan ku soo dari doono hadii alla idmo cilmiga barashada gaadiidka right-ka ah ama aviation-ka aan ku soo bandhigi doono qaybo kale oo iyagana muhiim ah maadaama arrintan aan ku qabanayo min shakhsi ah ina tahay arrin voluntary ah sidaas daraadeed waxaan idin rajaynayaa inaad ka faa'iideystaan in ummadaha kalena loo faa'iideeyo waa anigoo idin leh ku soo dhawaada Ilays channel ka faa'iideysta bar ama baro وبالله توفيق.